haatan ila hadlaya banaabax xoogan ayaa ka soconaya beexaani dadka halkaas ku nool ayaa wadooyinku xiray iyagoona sidoo kale rasaas loo adeegsanayo shacabka halkaas ku nool ayaana sheegaya in suuqa bilaaja carab dad ganacsataa laga iibiyo isla markaasna dhulboob xoog leh halkaas la doonayo in lagu barkiciyo dadka daawadayaal xaalad cakirnaan ayaa halkaas ka taagan ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kalena maalmihii ugu dambeeyeyna barakacinta magaalada muqdisho xaafadaha kala duwan ayaa markale soo laba kaclaysay dadka ayaana si siman ugu caraysan barakaca dowladdu u geysanayso dhanka kalena dhulkii debdemiska oo sanad 3 bilood kadib dadkii ka maqnaayeen ayaa iyagana dadkii halkaa ku noolaa dib ugu soo noqday iyagana sidoo kale waxay sheegeen in dad ganacsataa in dhulkii dib loo siinaya ka war heleen daawadayaal xaalad cakirnaana oo arrimaha dhulka la xiriira ayaan dul istaagi doonaa dhammaantiin soo dhawaada muuqaalka laagdha oo sii shargareeya janalka haddaa ku cusubtana subscribe dheh si maalmaad oo wararka ugu dambeeya gudahaan dalka iyagu degdega waa tag daawadayaal haatan ila hadlaya beexaani xaalad kacsanaan ayaa ka jirta islamarkaasna rasaas nool ayaa la isku adeegsanaya kadib markii dadkii halkaa ku dhaqnaa oo deegaanka ah ee iminka ay isku soo baxeen islamarkaasina taayaro gubayaan iyagoona ku qaylinaya in dhul boob xoogan halkaasi la doonayo in suuqa bilaaja carab lagula kaco islamarkaasna dad ganacsataa laga iibiyo dadka oo arrintaas ka caraysan ayaa iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn beexaani dhagaxyo ay tuurayaan taayaro ay gubayaan way qaylo dhaaminayaan boorar ayay wataan haweenkii carruurtii duqooyda halkaas ku noolaa dhammaan ayaa isku soo baxay iyagoo afka labadii yeeraya xaalada cakirnaan ayaa taagan dadka ayaana sidoo kale daawadayaal rasaas noolnool loo adeegsanayaa ciidanka ayaana doonaya in banaabaxyaashay kala eriyaan laakiin xaaladda halkaa ka taagan ayaa marmarba kas dambaysa sii cakirnaanaysa maadaama dadka shacabka reer beexaani ay sheegayaan in suuqa bilaaja carab dad ganacsataa laga gedi karaynin loo soo dhawaan karaynin la haweysan karaynin islamarkaasna dowladday ku codsanayaan in dadka dhulboobka suuqa ku haya in iyagana ay ka qabtaan daawadayaal xaaladaas cakiran ayaa iminka beexaani ka taagan dhanka kalena maalinta daraad ahaydna waxaa isku soo baxay dadkii debdemiska laga barkiciyo sanad 3 bil halkaa ka maqnaa iyagana waxay sheegeen dad ganacsataa dhulka laga barkiciyey in lagu wareeji doono iyagana ay yeeleen sidoo kalena waxay cos u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegeen in yihiin dad masaakiina isla markaasna 30 sano ugu dambeeyay halka ay ku noolaayeen dowladday u garaabeen halkaas ay kaga baxeen laakiin haatan aanan suurageli kareynin in dad ganacsato sheeganaya in dhulkaasi lagu wareejiyo daawadayaal maalmaha marka waxaa taagan cakirnaan ku aadan xagga dhulka haatan aan ila hadlayna beexaani banaabaxaas arrimaha dhulka la xiriira ayaa ka soconaya maadaama dadka halkaas kugu soo baxay ay sheegayaan in suuqa bilaaja carab ganacsatada lagu wareeji karaynin daawadayaal banaabaxaas marka haatan beexaani ka taagan wuxuu kusoo kormartash ku hay marka la dhaaka janalka cusubtana subscribe dheh si maalmaad oo wararka ugu dambeeyay muuqaalkana sii sharan karay